waxaad la soo galay xilli adiga aad fanka ku soo biirtay inuu Sharma Boy fanka ka baxay maxaa ka leedahay arrinka Sharma Boy fanka inuu ka baxay dhami rabkeena macakiis noo dhadhami sida dhayla amal noo dhadhami ma isdilna warka ma xirna muqdishanalkeeda ma shidna dhalinteena kula beejka ma aadna hablahashada mala baashaalna mid kala radina kala kicina ereyga kale labaad dhalaalkan aad arkaysid nina maal gashaday maxaa ula jeedaa dhalaalka aad arkaysid nin rag ee baa maal gashtay oo hantidiisa ay kuma han si fiican tusaale ahaan adiga iyo Xasan Toob halkee isku barateen haddii lagu dhaho qabiilkaasi maanta cimaamada ku tuur qabiilkee dhihi lahayd waxaan ka rabaa dooqa gabdhaha adiga aad jeceshahay waa dooqa waxaad leedahay hal abuur eraya aad samaysatay صح social media dhanna wada galay صفيعة aaladaha kala duwan صح erayadaas inaad wax nooga sheegtid سنة حريص لنيرو وحياوا igu yaabka bada waxa kamid qofa arkay waa weydii waxa dadka caanka meesha maxay ka ordaan qof caanaha hadii maanta lagu dhaho Soomaaliya jinsiyadeeda bedel dawlad kale صح jinsiyadeeda qaado jinsiyadeeda lagu siinayaa wadankii ku bedelan lahayd dalka Soomaaliya ay wali madaxweyne صح qowmiyadada ah صح musan qabanin صفيع haddaad qabato ma sida madaxweynayaasha kale ayaad qabyaalad iyo qoray iyo qax iyo rafaad nagelin doontaa oo kuraasta wasiiradana ku soo xuli doontaa rag ilma adeerada ah صح mase Soomaali ayaa u simi doontaa أنا wadhaxa ayaan waxaan ku socday gaari Prada ama V8 imaamadii dhacday dhiiqo lugaha la galay waayo gabdhihii aan uga sheekeyn jiray inaan ahay nin gaari leh maanta waxay arkaan anigoo sita mooto alla maxaan ceeboobay balse ilaahay hayna ceeb asturo maxaa dhici doona bal ila daawo السلام عليكم عليكم السلام رالي هذا waxaan soo galay jam anigoo aan soo daahay waan la socdaa waqtiga inaan dib uga soo dhacay لا ما بجري ما أنت ما أقد ميا إنها تهاي أحد oh sorry ما لا waqtiga socod- ma aanan soconin ما لسه عتد ميا تكنولوجيا ذا may ma la socdo teknolojiyada maxaa ka jiro قرنا يا مولنا لكن وشرح إيش شرح؟ وحاجرو أب لا يراهدو فرس okay oo kala soo deg kartid Play Store-ka kugu imaanayo goob waliba aad joogto kaana raqiisan mootada kuuna si dheer caafimaad qabkaaga ma sha Allah dii aan la socon lahaa abkan la yiraahdo farad mooto maanan soo raaceen oo suudkayga u naxaaya mar horan soo raaci lahaa inay ii sheegtaan bay ahayd waxaad moodaa kaftankaagu inuu badan yahay bal ina keen adiga iyo bulshada kara si markaa aad u faa'iidaysataan aad iyo aad baa u mahadsantahay ina Maria application-ka faras mar walbo aad raacdo waxaad helaysaa dhibcooyin oo aad mar walbo aad raacday ayaa waxa ku bedelan kartaa sidan ku hadalka taleefanka aad ka dhigato mar kasto aad raacayso inaad free ku raacdo inaad M-Pesada intaad u bedelato dhibcahaaga aad lacag kaash hesho u dirto dhibcahaaga gacalisadaada waalidkaaga saaxiibka inuu kugu soo booqdo free ah dhibcihi aad u dirtay صدقة أتكلم بحكرتي عمرو إيه حجنا إن أتكو آدي كرتو فرس وجيدي أتكو سوحر جلين لهي شو كان سجاج وقدام بنتي مع ميشنا شرفت له أدي أجاب كاجا أتكو إلودو جارج الحديثة هموجانين إن أتصور عضو تلفون هذا شاشة دكوكو قرن أبليكيشن كفرس وقول تلاقي شيء مع ميش هذا إنه جفت سيسو سيدا آيفون كا أما سمارت تي في هذا واحد كلا سعون كرتا بيج كود السوشيال ميديا جارهان فيسبوك بيج كا ومجلسوا هاي فرس كينيا هموغاني ابلكيشن كفرس بلانتينو وإنان لسو دقنو أبكا فرس faras waa familkaaga waan idin salaamay asxaabtayday waxaan idin leeyahay nabad iyo naxariis korkiina ee bahayeelo waxa ila jooga waa walaalkay waa wariye qaali ah waa majaajilista qaaliya waa wariye Catoosh soo dhawo waa dhawahay ambassador Sena Xariis le waa iwaalo saacawa Soomaha. labiskaada caadi maahan Absolutely. marka waa ku dhawaay asxaabtaadan waxa leeyahay dhamaantii waa idin salaamaya muuqaalkaana meel dheer hala gaarsiiyo Absolutely. qof walba oo daawanayna aragtidiis commentiga noogu cabiro Thank you. wanaag iyo xumaan Ha. wixii aha noo wadaan ha noo sheeg kala reebin aad iyo aad u mahadsantahay Catoosh dadku waxay barteen
asagoo media dhex jooga صح balse waxaan rabaa maanta asxaabta ila daawanayso Catoosh sooyaalkiisa nolosha halkee ka soo bilaabatay anaga sooyaalkee nolosha markii hore hooyadii anaa wiil u ahaa inkastoo gadaal dambe wiilka laga dhalay Masha Allah. dugsiga inta badan waa leegay jiray Masha Allah. cidayna beeraley laakiin aniga hooyaday ma ii ogolan beer iyo webi iyo wareeg inta ma lee ogoleynin Masha Allah. maadaama keligay wiilka xiligaas hooyaday aabbayna caruur kale waas wiilal iyo gabdho u haasta oonaaye kala ka soo dhalay marka aniga xiligaas waxbarashada kadib waxaa ka soo bilaabay warbaahinta raadiyo Jowhar idaacad la dhihi jiray oo Jowhar ku taale Si wanaagsan. kadib idaacadii waa ka sii tagay waxaa agaasimo ka noqday idaacad lagu magacaabo Al-Xigma Radio oo xiligaas Jowhar ku taale oo kadib waa ka sii tagay Asal Radio soo maray City soo maray Radio Jowhar ku soo laabtay Masha Allah. kadib Muqdisho imaaday Muqdisho markaa imaaday Radio Bandhiga waa maqasheena u maleena ka shaqeyn jiray aniga waxaan ahaa wariye ka faalooday sportiska si wanaagsan booska Maxamed Khadarna ku jiray si wanaagsan maantana haddii aan dhaho waan tabina ciyaaro Maxamed Khadar loo galaa absolutely marka saxaafadda oo xiliga shiid ahayd darteed waxaa ku soo bir dadka komandiyaanka ama shactarada durdur media haddana fanaan mustaqbalka soo socdana musharax liwa Masha Allah. waxaan ka rabaa adiga iyo Xasan Toob halkee isku barateen aniga iyo Xasan Toob nin la dhihi jiray aad fanka Allah u naxariistay oo Muqdisho ku noolaa oo saaxiibo aan ka dhankii aalada Facebooka ayaa haween iskaan baray 2017 markii aniga aan muuqaal soo baahiyay dad badan ay soo waceen dadkii marka hadalkooda waa ku qanci waayay sidaas darteed asaga haddana isoo wacaada fanka Xasan Toob isoo saaray sidaas isku baranay Jowhar joogay 2017 ahayd xiligaas Jaanis waa u heli waay inaan Muqdisho imaado kadib 2019 aan Muqdisho imaaday oo markaa Muqdisho imaaday si naxariis qisada ugu la yaabka badneed waxay ahayd TV iyo idaacad iska dhaafaba ka shaqeynaa TV aan inaad tagay oo shaqo ka doontay leedahay waa ku soo waca macnaha ana respect gaar lagu siiyay oo ay ka mid ahayd Astaan TV Asal 24 Shabeelle Radio iyo Dalsan haddana maanta waxay ku leeyahay Catoosh waa lagu shaqeysanayaa Catoosh maskiin waaye Catoosh wax ma oga shalay markaa aniga garabka ugu baahnaan way iska keeboojeen markaas ma waxa eedeynaysaa warbaahinta oo si toos ah mise shakhsiyaad ka hor shakhsiyaad xiligaas iga hor istaagay waliba waa leeshay hab qabiil inaa leega hor istaagan adigoo talentigaaga wato in lagu diido maanta markaa isoo saarin oo isoo wacayn dadkaas marka ma ka roonaato ma wanaajisay mase waa si naxariis la aniga aarsi ma jecli ninka rag sidiisana inuu aarsado ma ahan wax walba xaalad walba soo maraysa aniga weligay kuma fikiray inaa qof bini'aadam ka aarso waxaa lahayn ninkii awaalku gali waayo awaala loo galaa ilaahiyana awaalkaas ku guda sidaas absolutely Catoosh waxaan ka rabaa dadka waxa tahay markaan aniga aragtideeda fiiriyo dadka ugu xigmadaha badan sax waxa ku soo dhex jirta noloshaada qaybo badan oo kala duwan si fiican bulshada waxa aad kala kulanto waxaad ugu jeceshahay maxay tahay bulshada waxa kala kulmo waxa ugu jeclaa waxay tahay in la dhaho maalin uu maqlo Soomaali waa midowde Masha Allah. waxaan kale ku weydiinayaa bulshada bad image ka kaaga imaanaya shayga aad ugu neceb tahay ama aad dhibsato ama ku niyad jabiya markii lagu dhaho oo bulshada kaaga imaada maxay tahay si naxariis la aada u maasata aniga horta dad badan way isu aflagaadeen wayna ii gafaan hadda aad waa ila joogtaa maxaa ka dhim dada aaminsan Catoosh waa nin kibir badan oo dagaal badan sidaas u malayso wax ma u jiraan aniga maanta wax walba ay dhahdaan aniga maanta ay dhoono ma laga yaabo inaa u niyay jaba hadal qof bini'aadan uu dhahay
waayo waxaa la ducada waalidka haddii mar aad haysato iyo ku xirnaashada alle cid aa wax kaa qaadi karta inaysan jirin maanta aniga waalidkay way ii duceeyaan mar walba Masha Allah. waana ugu mahadcelinayaa wayna i jeceliin mar walbana way i dhiirigeliyaan horumarka aan maanta aan gaaray dadka ugu horey ugu dhiirigeli waaye Masha Allah. mar walbana waxaan leeyahay aniga hadal dad ama hadal shakhsi oo iska dhac hadal heyntu waa sharaf marka taa qof horumaray absolutely Yeah. dhagaxa ay kugu soo tuuraan inta Villa ka dhisana. ayaa villa ka dhisan marka Waa waxaa aad la u lagu xanta waxaa ka horeysa in Lagu lagu xasuusto. xasuusto intaas waxaa kaga simanahay mahmahadaas reer xamarka iska leh sax marka waxaan kaa rabaa Atoosh maadaama aad Soomaalida in badan dhan walbaba aad soo martay sax haddii lagu dhaho qabiilkaasi maanta cimaamada ku tuur qabiilkee dhihi lahayd horta qabiil maanta la dhihi kara cimaamada ku tuur ama Soomaalida inta badan dadka qabiilada soo dhow kamid ah waxaa kamid ah qabiilka maanta lagu magacaabo Abgaal oo ah dadkooda jecel inkastoo qabiil uu jir laakiin aniga ma arkin waxaa arkay gabdho badan oo Abgaal ah oo jariir guursaday ficil iyo waxaasna kuma arkin si wanaagsan qabiilada kalena way ka rooyin Si wanaagsan. Abgaal wax kale inaa isku qabata maahine naag ma isku qabanaysa absolutely marka waa bulsho u furan dad walbo kala nooca inay soo dhaweeyaan sax okay waxaan ka rabaa maadaama aad tahay dee abwaan safiican gabdhaha mideebaad u xuli lahayd qofka maanta gayaan raba inuu samaysto horta maanta inta badan gabdhihii Soomaaliyeed caanimay rabaan si naxariis la runta haddaa kuu sheego si wanaagsan gabarna waxay ku wanaagsan tahay in ay reerkeeda dhaqato ay wax barato awlaadeeda barbaariso caanimada lafteeda ma xuma laakiin iyadoo reer leh ayay media soo galay muddo markay joogto waxaa maqlay heblaayo waa la furay si fiican dadaa kala furaa dadkaas oo kalena ma wanaagsana guri in la dhisaa wanaagsan in la dumiyo ma wanaagsana si fiican walaalkaaga maanta hadduu khaldan yana ma ahan waxaa la ushii walaalkaaga ku dhacdo gumadkeeda adoo ku sugaa si wanaagsan maanta jabka walaalkaa haddaa ku faraxdo biri aday ku sugay waa xaqiiqtaas marka ninka ragga sidiisana god laba mar ma laga wada qaniin waa sax marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliya xitaa haddaa media soo galaysaan caanimo aa rabtaan si wanaagsan ku soo caanbax aad iyo aad waxaan kaa rabaa dooqa gabdhaha adiga aad jeceshahay waa dooqee aniga gabdhaha aan jeclaa waxay tahay gabar raaliye ah iga dambeynayso akhlaaq wanaagsan hadday rabtay qurxanaani hadday rabtay dheeraanin gabar u diyaarsan inay dhaqanto oo awlaad baare ilaahna kala siiyo quruxda iyo dhirirka maxaa uga ordaysaa quruxda iyo dhirirka waxaan ugu ordaa waxaa ku damacaa rag oo dhan si wanaagsan marka kaliya ma qabtid waa lagu la qabaa waa lagu la qabaa laakiin tan gaaban ma la fiirina absolutely waxaan kaa rabaa waxaad leedahay hal abuur eraya aad samaysatay sax social mediaha dhanna wada galay safiican aaladaha kala duwan sax erayadaas inaad wax nooga sheegtid waa iwaalooysa kow adimaasaan ii galo labo Soomaaliya ictiraaf badda ha ka raadsadaan saddex halkaa arkaysa nin rag baa maalgashta afar tan shanaad waxay ahayd waa bas iga dhe waa buuwiraan shantaani adigaa iskale maanta anigaa leh hal abuurkooda si naxariis la Nairobi waxyaabaha igu yaabka badan waxaa ka mid ah qofaa arkay waa weydii waxaa dhahay dadka caanka meesha maxay ka ordaan qof caanaha la haduu qof wax la soo duudaa soo caan bixiyo dhaa subhanallah hadda lawadeen yaa la soo caan bixino commentiga qarabna reer Nairobi hadalhaynta waxaa ah markaad qof u tagto oo aad waraysi ka qaado adoo raba barnaamijka asxaabtaada inaad u balamiso sooyaalkiisa qofkaasi inaad asxaabtaada wax ka barto waxa uu leeyahay qofkaasi tusaale ahaan inaan dhaho Atoosh yare oo aan Nairobi ku soo dhaweeyay ana soo caan bixiyay soo marka su'aashaas waxay noqonaysaa qof aad waraysatay sideeba ku soo caan bixisay balse
asxaabtaan u dhaafeynaa commentiga safiican wariye Catoosh iyo si naxariis leh keebaa la soo caanbixinaya soo maaha commentiga noogu dhaafa sidoo kale Catoosh shantan eray markii la fiiriyo waa eray fantastic ah sax eray la yaab leh safiican laba eray baan aniga micna ahaan aad ula dhacay sax oo aan rabo inaan ogaado ta koowaad waxaa kamid ah Somaliland badda ictiraafa u raadsato maxaa u tiri Somaliland badda ictiraafa u raadsato waxaa u dhahay markii qaar kamid ah dadka reer Somaliland oo aan arkay oo Muqdisho ha gubato Muqdisho ha qaraxdo dhahay oo xaasinimo halaas u muujinayo oo dhahay anaga Soomaali manihi ictiraaf baan dooneena markaas waxaa dhahay Somaliland badda ictiraafa ka raadsato Soomaalinimo hadii rabina afjinaha ku hadlaan absolutely ereyga kale labaad dhalaalkan aad arkaysid nina maal gashaday maxaa ula jeedaa dhalaalka aad arkaysid nin rag ee baa maal gashtay oo hantidiisa ay ku maqan si fiican tusaale ahaan naaga soo aroostay iyadoo wax aheenin oo daruuf haysato adiga maanta wax ka dhigtay daruuftii ka bixisay magac u yeeshay dhaqaale ku bixisay ninna wuxuu arkaa dhalaalkaas si wanaagsan marka inuu nin rag ka dambeeyo soo saartay ma u maleeyo ooga waas marka dhaldhalaalku iska raacay marka ka joog waa inina Soomaal gashaday wallahi waxa waaye arrin aad cajiib u ah Catoosh ugu dambeyntii hadii maanta lagu dhaho Soomaaliya jinsiyadeeda bedel dawlad kale sax jinsiyadeeda qaado sida tusaale kale ama qaaradda Yurub ama qaaradda Mareykanka ama Afrika ama Asia ama Australia qaaradda rabto sheego jinsiyadeeda lagu siinayaa wadankii ku bedelan lahayd aniga maanta hadda helayo Kuwait wadanka Carabta ina qaato waa laga yaabaa waayo waa dal muslim ah waa dal shaqo ah waana dal khani ah saas darteeda marka waxa ay lahayd hal igu bedelo safiican absolutely ugu dambeyntii waxaan rabaa waxaad la soo galay xilli adiga aad fanka ku soo biirtay inuu Sharma Boy fanka ka baxay maxaa ka leedahay arrinta Sharma Boy fanka inuu ka baxay waa duulaanka xoog badan inuu soo galay meesha ka cadaanayso marka Allah badbaadiyay fanka ummadda Soomaaliyeed ayaan ahay oo fankii aan badbaadina waxaan dareemaa fanka inuu gacanta ka sii baxay si wanaagsan mid kalena Sharma Boy wuxuu isku haast kaligiis inuu fanaan yahay kaligiis inuu heesi karo kaligiis inuu cod macaya waxa tusay in dhalinta maanta qof walba oo talent uu leeyahay meesha la iman karo oo meesha la iman karo aniga waliba xiliga afanka soo galay caanimo ma rabin absolutely qof caan waan ahaa asagana xiligu fanka soo galay caanimo u soo gal okay marka fankii maadaama uu ka baxay wuxuu fududay fanka culays badan oo nagu ayasay marka culayskii naga ana ka faa'iideysanaya marka heesa badan way soo socdaan inkastoo dadka hadda inta badan ay aad u jecel yihiin heestii raabka ahayd oo noo dhadhami ahayd wax yar iiga taawo noo dhadhami rabkeena macakiisa noo dhadhami sida dhayla camal noo dhadhami ma isdilnaa warka ma xirnaa Muqdisho nalkeeda ma shidnaa dhalinteena kula beejka ma aadnaa hablahashida mala baashaalna mid kala radina kala kicina manika shwaata waa ka wata waa isoo wacda nolosha ka dhacda waa waree absolutely waa isoo wacday nolosha ka dhacda inaba caadi maaha Catoosh yare sax riyadaada maxaa ah riyadeeda waxaa ah inaan arko anigoo ah senator aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah Soomaaliya anigoo ah wasiir anigoo ah madaxweyne inaan arko riyadeedu way tahay waxaan ku rajeynayaa riyadaada oo khayra inuu Ilaahay ku sahlo aamiin aan leenahay shacabka Soomaaliyeed kuwa inacab ee kuwa jecel halla caawa isoo jafa ana ogol waxaan ka rabaa dalka Soomaaliya wali madaxweyne sax qowmiyadaada ah sax musan qabanin safiican haddaad qabato ma sida madaxweynayaasha kale ayaad qabyaalad iyo qoray iyo qax iyo rafaad nagelin doontaa oo kuraasta wasiiradana ku soo xuli doontaa rag ilma adeerada ah sax mase Soomaali
ayaa u simi doontaa aniga kow Somaliland soo celina midda labaad dawlad awoodeeda la simaayo midda saddex xabsiya dhaqan celin waa dhisa dadka khawiilkii waxaas ku faana bisa lagu xira lacagana ku bixina dadkaas cunadooda meel saara culuma ogeena quraanka la bara maadiga la bara wadaniinimada la bara hal sana ku xukumila sanad walbo dhaqan celin booglis aan u sameeyla qofkii ka soo baxo bisa ka soo ugu dambeyntii asxaabteeda si naxariis leh maxaa leedahay ugu dambeyn asxaabtaada si naxariis leh waa salaamaya caawa beejka si naxariis leh inaan ka soo muuqdo oo si naxariis leh agteeda oo fadhi sharaf ay tahay aadana ugu faraxsanahay marar badan waa is arki doonaa si naxariis leh waa qof qalbi wanaagsan shakhsiyaadka Soomaalinimada ee ku dambeysana kamid ah caawana aad iyo aad idinku mahad celinaya dhamaantiin waxa leenahay Ilaahay ka cabsada midnimada iyo diintiina ku faana qabiil dooni meeno qaran baana ala kala kiciimo aad iyo aad ma santahay codsigayga ugu dambeeyay waxa waaye hadaa madaxweyne soo noqoto ra'iisul wasaarahaaga inaan noqdo diyaar oo si naxariis leh waa iwaalus aad iyo aad ma santahay waxaan idin leeyahay asxaabta muuqaalkaasi hal kala kiciyo thank you